rag badan ma yaqaanaan baan u malaynayaa meesha blockta delete forget waxaas oo dhan ay ku taalo teleefankaaga soo wacaysaa adigay kugu qayline block delete okay meeshan waxa fariin ugu dirayaa daayarada naga tagay daayarkii iga tagay daayarkayga ii soo noqo masar xalay waxaan adaa mas'uulka meeqa jeer baa lagugu dhahay waan ka soo fakarayaa waan fiirin doonaa waan arkaynaa dib ma laha mar waan is arki doonaa macnaheedu laakiin ma taqaanid macnaheedu waxa waaye kuma rabo okay assalaamu calaykum waan saaxiibada sharafta leh maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo oo aan fikradeyda ka dhiibto arrintan macallin xaliye sidaad wada garanaysaan intiina badan waxa uu casharro ka bixiyaa barta TikTok live iyo sidoo kale muuqaalo kooban ayuu ku soo gudbiyaa bartiisa TikTok macallin xaliye barnaamijyadiisa gabi ahaanba waa talooyin ku socda ragga isla markaana talooyinkaas waxa ay lid ku yihiin ama ay ka soo horjeedaan dumarka waa sida loo arkayo saaxiibayaal sidaan hore u sheegayba anigu ma ihi qof mucaaradsan macallin xaliye sidoo kale ma ihi qof 100% ku taageersan fikradihiisa maanta sidoo kale waxaan rabaa inaan soo qaato sheekooyin yaryar oo uu ku soo gudbiyo bartiisa TikTok isla markaana falcelin aan ka sameeyno iyo sida ay noola muuqato fikir ahaan si fiican ay dhageyso naagtaadu ma aha reerkiina maxaa ka wadaa familygaaga hooyada aabbaha walaalaha jooji inaad familgiina u jarto naagtaada daraadeed jooji saaxiibayaal taladaas waa mid ka mid ah talooyinka faraha badan ee macallin xaliye uu siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee daawada isla markaana ku xiran runtii taladaas waa qaadasho qofkii diidana runtii waxa uu damacsan yahay ma garan karno bal aan ku sii socono muuqaalada kale ee xiga indhaadayga naagaha casriga waxa ka mid ah gurigooda inta bariis cad laga kariyo ku soo wacaysa markaas ku leedahay waxaan rabaa lacagan chips ku gato sister aniga hotel ma ihi okay ma ihi hotel no biyo ilaahay yaqaan oo islaam ah saaxiibayaal arrinta markii halkaas ay taagan tahay waxaa soo baxaya su'aalo dhowr ah su'aalahaasna waxaa ka mid ah ma jiraan dumar rag ay shukaansanayaan ama la hasaawayaan waca isla markaana ka dalbada cunno ama lacag iyo wax la mid ah su'aashaas jawaabteedu waxay tahay yes waa ay jiraan su'aal kale ayaa imaan karta oo ah gabdhaha ragga ay la hasaawayaan ama shukaansanayaan waca isla markaana lacag ama cunto ka dalbada miyay jecel yihiin mise saaxiibayaal qof walba waxa uu leeyahay fikir u gooni ah sidoo kale qof walba xor ayuu u yahay fikirkiisa goonida u ah aniga ahaan fikirkayga arrintan ku saabsan waxa uu yahay runtii gabadha ninka ay jeceshahay ay la hasaawayso runtii awood uma laha ama awood uma yeelan karto karti ay lacag ku weydiisato waa haddii weli bannaanka ay kala joogaan oo aysan isqabin bal aan ku sii soconno sheekooyinka kale ee xiga marka nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya uu guursanayo gabar Soomaali ah waxa uu maraa vetting process ama baaris aad u dheer oo ay ku jirto qabiilkiisa waxa uu qabto waxa uu ka shaqeeyo gabadhooda inuu hayn karayo in kale nin mas'uul inuu yahay iyo wax badan oo la xiriira dhaqankeena iyo sidaan isku guursano laakiin waxaad arkaysaa marka la fiiriyo hadda qurbaha oo kale gabar Soomaaliya gabar kasta oo Soomaaliya xataa aan dhaho oo nin cadaan qabo ama nin Afrikaan qabo cidiisa ma la garanayo Soomaaliya lama weydiinin meher qaali lagama qaadinin waxa kaliya oo reerkaas ay u baahan inuu gabadhaas ninkaas ugu xalaaleeyo waxa ma taqaana is he Muslim yes saaxiibayaal runtii arrintaas waa arrin xaqiiqo ah oo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ka jirta runtii ma badna gabdhaha Soomaaliyeed ee ajaanibta guursada laakiin inta yar ee guursata runtii ajaanibta waxa ay ku helaan si fudud kana fudud sida shakhsiga Soomaaliga ama wiilka Soomaaliyeed uu ku heli lahaa gabadha kale ee asaagiisa ah ee Soomaaliyeed bal aan ku sii socono muuqaalka kale ee xiga adigu xayawaanow sidaad lacag ugu bixinaysaa daanyeernimadaada naag aadan weli qabin maba qabtidba naagtaad guursato ku bixi lacag dhib ma laha waayo waxaaba xadhig baaba kuu koray oo mas-uuliyad baa kortay okay dhib ma laha laakiin caqligaaga iyo fakar la'aantaada waxay gaadhay heer
aad lacag ku bixinayso wax aadan haynin waa adoo gadanaya alaab imaan doonta bad alaabtii ma imaanin alaabtii gacanta kuma hayno maxaad gadanaysaa saaxiib yaal in isla muuqaalkan dhexdiisa ayaan kaga hadalnay gabadha aad shukaansato ama aad la haasaawayso inay lacag ku weydiisto runtii aniga ahaan fikirkii waxa uu yahay gabadhu haddii adiga aad dareento inay u baahan tahay islamarkaana lacag ay shoobin ama wax uun isaga samaysato ay u baahan tahay haddii aad awood u leedahay inaad sii karto wax ceeb ah aysan ahayn laakiin haddii ay ku weydiisato ayada oo lacag shoobin ah iyo waxyaabo lamid ah ay ku weydiisato runtii taladeedu waxa ay tahay waa midda xalliye bannaankaas ka mar islamarkaana ogow gabadhaas inaysan wax dan ah ama jacayl ah aysan ku hayn adiga waan idin salaameew la haystayaasha baryahan dambe naaguhu update bay ka dhigeen waxaad arkaysaa nin la haystaa oo naagtiisa Instagram iyo TikTok ay dhex wareegaalaysanayso kaaga sii darane isaga intay soo qabatay TikTok-ana soo gelinaysa xaajiga aan dadka tusinaya saaxiib yaal intaan barnaamijka soo gabagabeyn bal aan wada daawano gabadhan fariinta qosolka iyo qiirada leh u soo dirtay macallin xalli salaanka ma gaari saw oyna indheeg ma jeediyeen u bararsan yihiin salaanka ma gaari meeshan waxaa fariin ugu dirayaa daanyeerada naga tegay daanyeerkii iga tegay daanyeerkayga ii soo noqo masar xaliyo waxaan adaa mas-uulka ah daanyeerada noo soo celi maxaa igu dhacay sariirtii hadiyadda liigu keen waa laiga ceshtay si la ii gala fiirshalaa noo noqono kolkayga soo galay ex fisbaan kolkayga soo galo wixii alaab oo ii gaday yaa se u gala fiir kaamirada sii jeedina sariirtii oo ii soo gaday oo awal galgaceylka ugu keenay madaxaasu iiga reebay dhinacyada dhan wuu qaatay muujeedaa gaarno dhulka yaala marwaxadaas cidaha deriska iiga reebeen xaasidka xunka ah muujeeda muraayadda wuxuu yidhi soo wacay muraayadda waa kuu dhaafay laakiin in yar ku cadaystaan kaa jabsaday inta yar ku cadaysanaya kaa jabsaday geeskaa soo foqsaday xaasimo wada qaato ama ma ii wada dhaafay kisaan ku cadaystaan kaa kuu dhaaf kareemada wuxuu yidhi lama xabaan kuu reebay saana masar xaliya waxaana ka saaxiib yaal barnaamijkan intaana soo gabagabayn ka hor waxaan rabaa inaan idiin sheego hal arrin oo ah in gebi ahaan muuqaalkan iyo muuqaalada xalliyaba aad u qaadataan wax iska entertainmenti iyo baashaal iyo qaraaxo iska ah ee aadan u qaadan serious iyo maxaa la yidhahdaa wax dhab ah oo aadan dagaal la gelin haweenka iyo hablaha iyo gabdhaha Soomaaliyeedba halkaas ayaana ku soo gabagabeynayaa saaxiib yaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan